का मेरे करूं क्यों बयां महफूज है अब ये मुझ में सुन ले जरा बेखौफ सा अब तू रहना यहाँ बन के रहूं साया तेरा इस इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा हो इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा ها أروي ديب waad mahadsantahay aad آمس هايمة هاد علين فيلم كان وحلو ده وقديش اوكي ده تي في هاي سودوان ما شاذنا كسوكين diib waa ku barya hadalkayga هذا الكذا مدوناي إما السجرة ينقضها يقفقوا ودي تادقين هنا تقفقاتو برسدي دينا واتقاتو كحد كانتو كريسي نمك توقدا يبرادها معاكو كليفاروي وقت والمركان كرالو إن هذا الكذا يسموه سيشك جمواني ما حدو قادر هذا وقت والبكالي حتى ما أنت أنا كان كوي مالهين ما نصعتها إن نمك اسكتي اللهين وركيك ما حدو مقل هذا يشكروي معاكو كليفاسي diib مدي باينين مرتم بنا اسكتي diib gacanta dhaawac soo امس قعنتيدا وحبا كاما قلين diib انا اسكتي ودديدا مرتم بينات سو مرتو هدي انا اسكتيدنا قعنتيدا يان كاغا عانا مالا يا روي هدي انا كوي ما انك سو كدلاي adiga nool ma dhimanayo intaad adiga garabkayga taagantaana cid wax iima gaarsiin karto diib gacantaada dhiig ayaa ka socda ما ديكو كاسادا ديكا قفكو ديكا كسعودو وانيغا idhigaysa diib adiga taaraa waa dishay needaraana waa dishay waxaan rabaa inaan ogaado qofka saddexaad oo damacsan tahay in aad disho haddii aan aniga ahay qofkaas waan ogolahay inaad disho waaba haddii adiga waddooyinkan xunxun aad uga soo noqonayso aniga dilkayga marka waa ku baryayaa diib haddaad doontay dil laakiin waxaan xun aad samaynaysa iska أروي يسن كلنا نغني هذا هذا انجلعنا وكوشاق يعني قرشاق نجي ما بدلكت مت كلام كوشاق نترأي ترى أنا قلت لك هذا كمان أنا دمبين بس يسن كلنا نغني كيريدو ذو واحد جنج هنا يقول السمر نبا لا صوتس تنكلا دور جار وانكوشاق فريم فرق بدلنا وكوشاتري هقول أنا نيجا فرا كل جرا مرتم بهديات فرا لسوق شو واحد وقتين اللي لوبي يا أروي نفه أو واحد دور السمين يا أروي كالقعيل كانوا من اللوبي عن كوكبه عقت ماشي هديك سنة كو عبرناتو هديك لا تقول تتكجبيسا وان كل دردار ما وانا كوديك وانا مركي قدام بيساروهي diib iga raali noqo mar walba howlahaad waan soo faragashanayaa si aan kaaga celiyo waxyaabaha xun aad samaynayso waana ku qasbanahay inaan sidaas sameeyo taliyahayga dib ayuu garab siinaayay sababta u siinayana aniga ilaa iyo hadda ma aqaano anigoo xila taran dib inuu dhibaataysto dhiibna sidaas darteed uu qofka faa'iidaysanayo markuu dhiban yahay adigana aad danka leedahay dhibkaas ayaa looga faa'iidaystaa haddaa soo xusuustay dib sibiro ayuu taliyaha u keenay taliyaha sibiradaas markuu arkane asigu wuuna xad sibirada waa inaan soo ogaanaa adiga askarigaaga soo ogow anigana wiilkayga aniga ayaa ka fikiraayo laakiin waxaa ogaataa aruuri inay rabto wiilkayga inay maskaxda ay ka degto danteedana waa intaasoo keliya tandiibna xalkii looga celilaya aniga oo keliya ayaa garanaya anigaana keeni doono wax walba ay ugu qaadatana aniga ayaa samaynaya
hooyo maanta maalin qaasamiya wax qaasamiyaa jirane aha maanta waa maalinta naagaha nimankooda u duci lahaayeen anigana mandarka ayaan u socdaa laakiin adiga arrimahaas dhan maxaa ii weydiisay waajibaadka marubanimona waa ka soo bixiweysay arrimahan oo kale ina ii weydiisana looma baano ma fahanteen hooyo adiga maxaad ku hadlaysaane soo ma ogid nolosheeda dhibaatada iyo burburka iyo baabaa loo geysta diibna mar walba khiyaano ayuu ii geysan jiray xataa guurkeenna khiyaano ayuu ku dhacay nolosheen oo dhanne khiyaano ayay ka bilaabatay ilaa iyo haddana khiyaanadii ayay ku socotaa adigane mar walba waxaad dhihi jirta gabadhaydoo kale ayaa taa garab ayaan ku siinaya maantana adiga miyaa noocaan u hadlaaya ooma waxaad rabtaa diib in aad garab siisa anigana isaga dartiis inaan u soomo miyaad rabtaa hooy maya midaas ma dhici karto waayo diib waa khiyaanoola nin khiyaanoolaa dartiisna aniga gaajo isuguma dilaayo mana soomaayo cuntadeydaan daldala ka waranaya beela maaho wax qaasoo ka wada hadlayseen miyaa jira waxba ma jiraan gabadha sodooda u ah ayaa fahansiinaya waajibaadka sodoonimo sida loogu soo bixi lahaa aniga mandarkaa aadaa wax yar arrimaa ku leeyahay waana soo laabanaa dantaa kaleedaa maxay tahay iyo arrimaha qaaska ii sheeg wax weyn maahan arrimo yaroo iska qaasee waay wax yar kadibna iska soo laabanaa gabadhayda arowe aniga mar hore ayaan ku dhaha waxa kugu dhaca inaad ka fiirsato adigoo og diib waxa uu yahayna waa daba joogtaa ilaa iyo hadda garab ayaa siinaysaa waana la yaabanaha arrinka noocaas waxa aad ku samaynayso aabba aniga weligay diib ma ku kalsoonaan jirin balse hadda aniga waxaa rabaa kalsoonida aan u qabo darteed inaan waddada uga soo leexiyo adigana waxaad rabtaa wiilkaaga waddada toosan inaad ku soo riddo ani adiga isku mowqif ayaa nahay laakiin labadeena kale wadda ayaa nahay diibna waddada xun waan ka soo leexinayaa aniga ayaana middaas ku ballan qaadaya waayo diib waa qof wanaagsan qalbina wuu leeyahay haddii la waaniyo waddadan waxaa laga yaabaa in uu ka soo noqdo waan isku dayayaa marka aniga asaga dartiisna waan u samaynayaa sawirada intee ka keena saa u raadinaan waa daala hadda inaan raadiyo ayaan ku qasbanaha si aan caddeemo u keeno musalsalkan wuxuu gaarku yahay muqdisho cable tv taliya waxyaabo muhiim raadinaysaa? oo raadinaysa miyaa jiraan ii sheeg bal maya waxyaalo muhiime aan raadinaya ma jiro waxaas dhahay xafiiskii isku dhex qasnaa inaad toosii keliya ayaan rabe haddana waa kina waa habeeye wax kale ma jiraan hadda adiga maxaa kale aniga doqon miyaad ii malaysaa mase adigaa doqon oo hadalka kaa wareersaday ii sheeg midaasaan ku weydiinaya waa kula kaftamaya oo keliya kaale adiga tuug la qabta camal oo cabsootay see waxu jiraan ii sheeg cabsida intee kaaga imaaday maya aniga ma cabsanin okay qaanada xir iiga tagta haddii aan badbaada saacaan dib dartiis ayaan baxar u geli lahaa laakiin wax walba ee dhac aniga sawiradaas waa inaan helaa waana ku qasbanahay inaan raadiyo ani kaliya ma siin adigana waa inaa cuntaa tookadaada waa kanafka ku galiye hadan cunaya maanta waa maalinta cimri dheerida naag walbana waxaa loogu baahan yahay ninkeeda inay cimri dheeri u tagto laakiin adiga waxaas oo dhan ma taqaanid waxaa tahay naag muqaalifa ah maxaa kugu dhaca baaya sidee waxu jiraan aniga hadda cuntada ma cuni karo arrin muhiim ayaa ii soo kaale laakiin halta raashinka cun kadib aa baxeeno maya abaaya adiga cuntada ii cun anigana waan kuu soo laabanaya gabar fiican noqoya
iyuu noqon karaa qofkan iyaana soo dirsaday hooyo tartiib hooyo gurigayga wax yar sug anigaa gaari kuugu wacaayo halow diib kala digtooreyso bal fiiri maamadan okay sanka dheh tartiib okay hooy isdeji bal way xanuujinaysaa naagtan hooya way qofka xabadda ku soo riday maxayse ka samaysay muxuuna u rabaa inuu dilo hadda aruuhi qoftan xaaladeeda waa okay wax dhibana ma qabto lugtana jugle gaarta mooye hilibaa ka horeeya wax dhaawac soo ma gaarin la tacaala soolays waxbaha ka walwalin adiga xaaskayga aniga ayaa ogaanaya wax walbay u baahan tahana aniga ayaa fadhigeeda ugu keenaayo hooyo hooyo aw meel xun yaa san yeela hooyaday ii sheegay yuu yahay qofkaas qofaasi ku talagal ah maya waxaa ku soo dhacay gambaleelka mandarka saas darteed lugta ayuu uga dhacay dhaawacan sidaas ayuu ku soo gaaray wax kale ma jiraan intaasoo keliya ayaan arkay waray igu qallajisatan koodhe ditoreyso mid samay hooyadee lugteeda waa inaad ku dadaashaa sida ugu dhaqsiyaha badan daawooyin fara badan la jooji diib seewey islaantan wax ma qabto way caafimaadaysaa la tacaala oo keliya wax noo muuqda ma qarihe ficnaa laheeda aroogihii waxa ay sheegaysa inay run noqdaan hadday run noqdaan waxaa igu ballana qofkaas inana marnaba dhaafin dab ayaan madaxa u gelinayaa kadibna waan duugayaa wiilkayga adiga waxaa ku hadlaysa waa maxay hooyadaa waa u jeeddaa inay dhaawacan tahay ditoorisan waxay tiri in la ogaado ayaa loo baahan yahay adigana waxaa rabtaa inaad iska baxdo waxaa loo baahan yahay hooyadaa inaad agta ka fadhido oo weliba aad ka taxadirto aniga digtoorisadan sii dhoweynaya adiga hooyo lasii joog dhadhanshaha waana laakiin dhargaaha ka daran waa maamaa soomaaliyeed oo jirto ku ducayso arooyihii hadalkay sheegtay inuusan marnaba rumoobin hadduu rumoobo waxaad ogaataa waxyaabo foolxun inaad igala kulmayso waxaan iloobayaa inaad aabbahay tahay diib raaj siimna wuxuu la soo baxayaa siiftiisa mar haddaan la soo baxana ciddaan dhaafay habeeraatee ma jirto hadalka nuucana aniga oo aabbaha miyaa horteeda ka dhehaysaa ma ku dhaafi doono qoorta ayaan kaa goynaya wiilkaygii siida gacantaadana ka fuji ayaan ku dhahay waa ku baryaa wiilkayga kaleeco hooy ha soo kicin meeshaada fadhi maya anigu waan istaaga maxaad u baahan tahay ii sheeg anaa kuu doonaya hooy fadhi waa dhaawacan tahay ninkan inaala hadlayaa jirto mar walba gacan ayuu ku fadhigaada kala hadal hooye macaan wiilkayga adigoo dhaawac lagu geysanaa miyaan ku fiiri karaa aniga ma jiifana hooye dhaawiciga waxaa ka daran dhaawacaada jiifo tartiib caafimaadkaada waa inaan ku dadaalo lugtasaan dhahooy hoogaa isadkay okey fadhi anaa kuu soo noqonaya arooyii hooyaday waa la soo weeraray dabcan inaad taqaanno qofkaas wejigiisa yuu yahay ii sheeg qofka isku daya hooyaday inuu dila ma ii sheegi kartaa aniga mudugkiisa mar siinaayo qofkaas aamusnaantaada waxay ii caddaynaysaa inaad qofkaas taqaanno ii sheeg qufacan waa kugu riya sankan dhiigka keena diib isdeji adiga xanaaq badanna caafimaadkaaga uma wanaagsan maxaan isku dejiyaa ii sheeg qofka hooyaday dhibaateeyey magaalada ayuu si raaxala ku maraya adigana waxaad leedahay isdeji suurtagal maaha ii sheeg raalli noqo xanaaqan iyo inaan san kula hadla waxay ka keeni kara dabcan waad dareemi kartaa hooyada ayaa dhibaato loo geystay qofka dhibaatada hooyaday u geystana aniga ayuu ugu dambayn ii geysanaya waan ogahay aniga middaas maantana waan ogahay inaad ku jirto maalinta qaylada laakiin looma baahna xanaaqiga qaylada inaad awood ka dhigato awooddaada kale la soo bax maanta hooyada ayaa la soo weerara berine aniga ayaa laysoo weerari karaa xataa aabbaha waa laga yaabaa in la soo weeraro waan ku baryayaa marka adiga xanaaq badan iska daa noloshaadana hore u dhiso waxyaabahan xunna iska daa intee jar ayaan ku leeyahay nafteenna ka fikir dib waa ku baryaya waddada adiga aad ku socoto ka soo laaba haddii kale annagoo dhan waan baaba'eynaa
waadna ogtaa familkaaga haddii ay kaa fogaadaan xanuunka uu leeyahay marka waa ku baryaaya inaan kaa fogaano haddii aadan jeclayn waddadan ka soo laabo waad ogtahay diib diib raajsiin intuu dunidan ku nool yahay lagama yaabo reerkiisa in wax la gaarsiiyo makaada dagaalarkayga maanta hal qof oo keliya ayaa ku soo weerara berrina waxaa laga yaabaa boqolaal qof inay adiga ku soo weerarto musalsalkani wuxuu gaar u yahay muqdisho cable tv aruuy maxaan sameeyaa waxaan samayna noo sheeg anigu shakhsiyan talo waa iga wareertay meelaan wax ka bilaaba ma aqaan aruuy waxaan rabay waddadan foosha xun inaan ka soo laabto laakiin awood waa u yeelo waaya aan uga soo laabto aniga ayaa garabkaaga taagnaanaya mana loo baahna inaad adiga cabsato intaad waddada saxan ku socoto noloshaadana kama fogaan doono waan ku baryayaa aamus mar walba garabkaaga ayaan istaagsanaanayaa tilaab walbood qaadaysana waan kula qaadayaa mana laga yaabo wadnahaaga inaan ka fogaado waddada mugdiga ahon galay gelid mooye bixitaan wax la yidhaa ma laha waana galay aniga waan dhex taagana maanta waxaan sameeya ma aqaan ha ka welwelin middaas dib aniga adigoo gacnaha ishaysano ayaan ka soo laabanaynaa waddada mugdigaah dhibaatadaasna waan u dulqaadanaynaa adkaysigeedana waan yeelanaynaa igu kalsoonaa macaan aniga ayaa kuu joogo